الحمد لله وبعد soo dhawaada walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo waxaan rabaa maanta inaan idinla wadaago arrin run ahaantii aad aan ula yaabay bal iniguna inaad ila aragtaan oo sidaan u yaabay aad u yaabtaan marna waa naxay aad u naxdaan ayaan aniguna ugu talagalay kitaabka hortiina ka muuqda ee shaashada aan soo saaray waxaa la yidhaa ruuxul macaani waxa iskale ninka loo yaqaano maxamuud ibn cabdalla al-aluusi marka uu fasirayay suuratu naxli aayadda 55 hadalkan ayuu leeyahay bal ila fiiriya wuxuu yiri kuwa shuyuukh isku sheega ama iska dhiga inay shuyuukh yihiin ayaa waxay igu yiraahdeen anoo yar waxaad iska jirtaa wiil yahow inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala gargaar aad weydiisato marka dhib culus ay ku soo saarto ay ku soo food saarto oo waxa weeyaan dhibaato culusi ay kugu dhacdo sababku muxuu yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala u degdegi maayo inuu kuu gargaaro oo wax kuu qabto talow yaa u gargaari doona hadduu ilaahay u gargaari waayay garan mayno ilaahayna subxaanahu wa tacaala arrinkaaga wax ihtimaam ah ama dan ah uu siinaayo ma jirto dhibka aad ku sugan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wax dana uu siinaayo maba jirtaba yacni dhibkaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu daawanayaa wuxuu yidhi waxay igu yidhaahdeen waxaad gargaar weydiisataa awliyada waa dadka dhintay ee qabuuraha ku jira ama cid maqan oonan la arkayn gargaar weydiiso oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu iga kor qaadi waayey ma insaan iyo bini aadan baa iga kor qaadaya bal arrinkan la yaabkiisa fiiriya subxaan allah waxaa lagu yidhi adigu gargaar waxaad weydiisataa dadka waxa weeyaan awliyadii hore ah sababku waxa weeyaan ayaka ayaa kaa dul qaadaya dhibka ku haysta wayna u degdegayaan arrinkaagana waxa weeyaan uu dhibayaa iyaga hawsha aad ku sugan tahay arrinkaa marka aan maqlay maqalkaygu waxa weeyaan aad buu u dhibsaday buu yidhi hamigaygiina ama waxa weeye naftayduna way isbedeshay buu yidhi ilaahayna subxaanahu wa tacaala waxaan weydiistay inuu ka ilaaliyo muslimiinta noocan oo kale ama dadka sidaasi u dhaqmaayo oo kale baadida ay ku sugan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu muslimiinta ka ilaaliyo wuxuu yidhi sheekhu weliba asagoo sii wado walikathiirin min almutashayikhiina alyawm kalimaatun mithlu dhalika kuwa fara badan oo iska dhigaya inay shuyuukh yihiin maanta kelimado noocan oo kale ah ayay ku dhawaaqaan buu yidhi waa marka uu yaraa wuxuu ka sheekeeyey haddana waa isagoo oo weyn wuxuu ka hadlayo uu leeyahay yacni hadda oon weynaadayna waxa weeyaan dad fara badan oo qaabkaa iyo noocaasi u dhaqma ayaa jirta okay haddaba waxaan rabaa wixii iga yaabiyey inaan idiin soo bandhigo waxaabad moodaa in la isu dardaarmaye bal hawshan fiiri odaygan aan idiin soo wado videoga soo socdo waa oday da'weyn oo tin caddaana maahine tin madow aan lahayn warka uu ku sheekaynayo bal ila fiiriya ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idin barakeeyo caawo dhan haddaad ilaahay baryaysid oo qur-aan akhriyaysid oo tukanaysid in laga aqbalay iyo in kale warka ma haysid laakiinse nin weliya markaa soo booqatid ilaahay agtiisuu maqbuul ka yahay weligaasi oo ilaahay u ballanqaaday lahum maa yashaa'uuna cinda rabbihim ilaa agtooda waxay ku leeyihiin waxay doonaan bay ku leeyihiin marka ninkii iyaga soo booqda iyaga baa ka raali noqonaya ilaahay bay markaa u baryaanaya ilaahu muraadkiisa sansii ama adduunka lagu soo dejisay boqor sheegay ama aakhiraha lagu alla maxaad moodaa inay isu dardaarmeen warkana ninba nin siduu ugu soo dhiibayay ilaa annaga ayna soo gashay Soomaali haddaan nahay wadaadkii aluusi ahaa wuxuu ka sheekaynayay sawtani oo kale uunma bal u fiirso odaygani hadda wuxuu inoogu sheekaynayo in waxa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan lagu xidhmin oo waxa weeyaan addoommada ilaahay uu abuuray lagu xidho inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun